ilaa shala buuq iyo qaylaa socotay waxaa lagu ballamay saaka in lay dhiibo aniga oo la ii dhiibo gaaladii oo lay xiro waxaan ku noqonayaa jeelkii insha allah ama ilaahay qof kale oo iga damiinta iisoo sahli doono ama way isoo sokeyn dayn doonaan ma ogi intaan xirnaanayo marka hadeertaan wax yaraan banaanka joogaa gudaha haddii aan u noqdo inay ijaabeeyaana laga yaabaa oo jeelkii la ii qaado waxaa la sugayaa ninkii askariga ahaa oo iqaadi lahaa oo jeelka i geyn lahaa maadaama aysan gabadhii mas-uul iga noqonaynin mar labaad waxwaaye anigana jeelkayaan isaga noqonaya awalba halkaan waxba kuma haysan ilmahayga lamaanan joogin banaankaan joogay haddana jeelkayaan isaga noqonaya السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحان آدو السلام يا ولالها قلبك مانتا عنها بادباتك كترتا عاجزك اسكا بدنا مالمهن ان مانتا واد مودا قندادين ايغا يراتي ومركا لا يسكو سو نوقو دنبه او خيسه له عاجز حنون وحيابا اسكا جرجري marka alxamdulillah rabbil alamin inta aad neefsanayso inta aad hadlayso inta aad qurux badan tahay inta aad wax cunayso alxamdulillah rabbil alamin maanta baan jeclayn inaan soo duubano codkayga sidan yahay ama dhibaato iiga jirto cunahayga laakiin waxaan jeclaystay inaan video duubo oo aan ka hadlo gabadhan aad sawirkeeda arki doontaan insha allah biidnillah waxa aanad arki doontaan videogeeda hordhaca ah gabadhan social media ama baraha bulshada ayay wada qabsatay si la xaalanaana way u wada qabsatay waxaana la yidhi dadka muslimka ahi waa jasadun waaxid waa jir kaliya markay walaashaa dhib dareemayso inaad la dareentaana waa muhiim runtii waan la dareemay safiyo waa gabadh maraykanka xunti kaakumaa lagaga qaaday mise xagar dheer labada xunti mid kamida ayaabaa laga qaaday iyadii caruurteedii maraykan baa la geeyey iyadu waxa ay islahayd waxaad helaysaa fursado badan oo noloshaada kamid ah waxay islahayd waxaad helaysaa farxad waxaad helaysaa lacag waxaad helaysaa nolol aad u qurux badan laakiin may dhicin waxa ay heshay murugo waxay heshay qoomameyn waxay heshay stress waxay heshay inay u dhawaato waali oo kale waxay heshay in inta lagu xidho xabsi guri waxay heshay in xabsi la geeyo maanta sidaas videogeeda ku arkaysaan xabsi ayaabaa loo taxaabay iyadoo awlaadeedii laga qaaday inanta aad arkaysaan ee sawirka kula jirta aad arki doontaan ayaa ashkataysay waxay ku ashkataysayna waad ogtahay Yurub iyo Mareykanba waxaa taala fursado caruurta lagaga dhigayo runtii aan waxaan aaminsanaa waligeyna aan aaminsanaa waxaan oran jiray oo isweydiin jiray xitaa markaan intan ka yarahay dad xuntiya dad gaala oo kula dhiirahayn oo kula dad ahayn oo kula dhaqan ahayn oo kula diin ahayn ayaaba ku qaadaya adigii awlaadaada Mareykan bay ku geynayaan bas waxbay ku siinayaan way ku quudinayaan marka anigu maxay uga jeedaan bal su'aashaas ay isweydiin jiray laakiin maanta Soomaalidii dhibaatadii ugu weyneyd waxa ay ku dhacday dadka Soomaaliyeed qaran jabay hadaad maqli jirteen dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ayaa qaran jabay noqday hooyo Safiya waxay ahayd hooyada awlaadeeda u shaqaysanaysay ee waliba soo korisay iyada oo ninkeedii Afrika kaga soo maqnaa iyadu korsatay barbaarisay hooyadaasi waxa ku dhacday in awlaadeedii soo ashkatayso inanteedii weyneyd markay soo ashkataysana awlaadii oo dhan laga qaado hooyadaas waxay bilowday stress iyo isla hadal waxay soo gali jirtay baraha bulshada iyada oo qaylinaysa iyada oo caytamaysa iyada oo qabiil caayaysa runtii kamay ahayn kamay ahayn hiil ama qabiil ay caydo laakiin kaliya ta waxay ahayd gabiga stresska haya darteed ayay doonaysay inay u hesho dad la mayra dad ay stresska dad qofku markuu stressa iyo qofka ugu xiga ama ninkii qabay ha noqdo ama walaasheed ama walaalkeeda ama aabaheed ama hooyadeed qofka noloshooda ugu dhow ayaabay stresska iskaga biyaan waxa ay doontay markaa inay soo barahay bulshada soo gasho iyada oo buuqsan
buuqeediiba cajalada laga duubtay maanta ayaabaa lagu karbaashay hadalkii ay shalay tidhi hooyadaasi oo ay tiri reer hebel bay caayeen inaan hodal la yidhahdo oo reer boorama ah ayaabaa caawinaysay xabsigii bay kaga daba tagtay way ka soo daysay waxay qaadatay damaanadii oo dhan markay damaanadii ay qaadatay ay tiri aniga ayaabaa xabsiga damiinka ah oo damiinnimo loogu soo daayay oo carruurteeda xitaa hal habeen loo soo celiyey oo ay la seexdeen ayaabaa waxaa dhacday waxaa lasoo helay fideoyo ay ku caayayso madaxda hawiye markii ay madaxdii hawiye dadkii baa ku kacay inantii xitaa way ku direen sideebaad u caawinaysaa naagta sidaas caynkaasa waxa aan leeyahay shalay hadduu walaalkaa ku dulmiyey shalay walaalka hadduu kugu kibray shalay walaalka hadduu ku dhibay xumaan may ahayn tala xumaa qaaday baad odhan kartaa laakiin haddii maalintii ay dhibanaha ay ahayd oo ay dhibaataysnayd oo ay dhibaatada aadka u badanay ay haysatay aad adigiina maanta kusii istaagto oo aad adigu karbaashto oo aad u diidda in la caawiyo oo aad u diidda in aad jeclaysato iyadoo dhibaataysan maxaa ka weyn awlaadaadiioo gaalo gacanta u gashay gurigiioo lagugu kaa madoobeeyey haddana adiga xabsi lagu geliyey qofka xabsi soo maray 37 cisho ayaan xidhnaa baan u malaynayaa oo weliba aan ku dhex noolaa dad Soomaali ah ila diina ila dhaqana ila qabiila ila afa oo aan fahmaayo ayaan bil iyo dheeraad aan la xidhnaa oo aan xabsi ku jiray hawada oo kaliyaata ayaad u baahanaysa xorriyadda marka lagaa qaado dhibaatada iyo xanuunka qofkii soo maray ayaa garanaya hooyana marka aad tahay u fiirso ilmahaaga markaad maanta ama dugsi u tagto aad u dirto ama aad tukaan u dirsato ee uu soo noqon waayo hore isagoo ciyaalnimadiisu intay ka tadbadiyaan isagu hadda caafimaad isagoo xunihiiba maanta isagoo caafimaad uu qabo laakiin ciyaartu iska tegay qalbigaagu siduu noqonaya waad boodaysaa waad naxaysaa waad cararaysaa waad soo eegaysaa waad degaysaa ma garatay markaa hooyo marka aad tahay waxaan arkayay dad badan oo caayaya maama safiya dad badan oo caayaya qabiilkayga caydee caaya ku tufa waxba ha u qabanina karbaasha ha aragta xanuunka ha caykara caynka ilaahay baad ku gaftaa maalintii 100,000 oo jeer ilaahay ku abuurtay adiga ee ku arsaaqayay ayaad 100 jeer maalintii ku gaftaa oo aad ku gaftaa oo aad ku gaftaa oo aad ku gafta oo ku cafiya oo waliba ku quudiya bal ka sheekay hadduu Allah subhanahu wa ta'ala hal markuu oran lahaa waan ka argoosanaya maxaa dareemi lahayd ilaahay ku abuurtay adigoo ku gafa oo waxaan ku yiri aad maalin walba aan ilaahay caasino ayuu ku siiyaa waxaad cunayso waxaad cabayso hawada neefti aad qaadanayso oo kaliya bal ka sheekay hadduu tusnaada ka yara argooso hawadaas uu ka yara qabta sidee dareemi lahayd adigoo bina aadankaas oo maalin walba gaf u saaxiiba marka aad tiraahdo gabadh baa nagu gaftay qabiil hebel hadaanu nahay oo ka kacaay oo dadkii caawin lahaa hadaanad adigu caawinaynin oo aanad duca ku caawinaynin inaad afkaaga aad ka haysato waayo qofka mu'minka waa ka anfaca dadka mu'minku waa qofka anfaca dadka hadaanad anfac lahayn oo aanad anfacaynin sharkaaga ka cesha baa lagu yiri ma garatay qofkiina ma anfacaysid sharkaagiina saas u dulduulaya sharkaagi meel walba uu maraya maalin baycayday qabiil hebel baycayda xasan sheekh baycad axmed iyo xasan ba iyada ka dhalatay ehelkeeda kamid ahaayeen way la dhalatay miyaad ka xigtaa xasan sheekh maxamuud kama xigtid sheekh shariif sheekh axmed kama xigtid iyada shalay ka dhalatay ma garatay marka waxa aan leeyahay Soomaalidii oo iswada nacday hadaad aragtay baraha bulshada qabiil baa ka hor cararay qabiilka qof waliba qabiil waa ku jira laakiin kaliyaata in aad laha sharkaaga aad umada ka xijaabto oo aad ka aamusto weeyaan war waxa aan la yaabanahay dadkani ma fikiraan miya ba xisaabtamaan miya
بفكران ما حساب طبعا وحبا اسكو مفلان ما كلا حشودان 91 92 93 94 waxyaabay inagu dhacay waa la wada ogaa waxa uu aabbaahana qabiil buu ahaa war qabiil waa ka ku qaxiyay ee Mareykanku kugu tiqtiqsanayo ee hooyadaadi aad arkaysa sawirkan taamleedka ka qoran sidoo nin gaali u xabisanayo ee ugu xidhanayo saacada iyo turjumaano cagahooda ugu xidhanayo waa ka hablahaagi kaga oohiyay qabiil ee ku qaxiyay ee Yurub ku geeyay ee meel walba ku mariyay ee dhibaatada maanta taagan ee Soomaali qari jabay ka dhigtay qabiil buu ahaa marka waxa aan leeyahay hadda isu naxariisan weydaan bina aadano oo idinku isu naxariisan weydaan oo walaalkiina dhibaataysan meesha haddaad qurbo joogto xitaa waxaan arkayay inan kale oo munaxubi miyaheed xubbi qurbahay ku xanuunsatay maskaxiyan bay ku noqotay qof Soomaali ku dhex jirta xitaa qof Soomaaliya oo ilaahda maxaa halkeebaan ugu tagnaa qurbaha waxa uu noqdayba meel aan la isu naxayn meel aan la isu naxariisanayno ayaa uu noqday iska raalaad xanuun yar baa jira caajis marka codkayga xitaa wuu isbedelayaa waan dareemayaa marka waxa aan leeyahay war ha la isu naxariisto oo qof walba meeshuu iskaga dhow yahay ee ajiraanka laga yahay la iskugu naxo oo ha la iskugu naxariisto haddaad u naxariisato walaalka Allah subhanahu wa ta'ala waa ku naxariisanaya aakhiradaada dambe wax dhigo marka waxaan idinkaga tagaa walaashiina idinku leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh